ninka bini aadanka marka qalbadiis aad ka soo goodid inuu nabad kaaga tago lagama yaabo. Ragga 95% lagama yaabo inay nabad kaaga tagaan. Markuu ku naco uu argo inaad adiga daacad aad tahay, yacni maba yaqaanaba inuu ku yiraahdo walaal macaan aniga way iga soo dhamaatay, I know waxba igama aadan haleyneen, su'aalahaas ay weydiineen, I'm just leaving you. Muku dhahayo waa inuu marka hore dhibaato uu kugu sameeyaa, waxyaabo adiga ku dhibay waa inuu kugu sameeyaa, waa inuu isbedela, waa in wax un ula yimaada si asigii hadhowdii beritoole aadan u dhihin dambiila tahay. Ilaan ragga Soomaaliyeed hadday mar lugtu kula soo galaan ay kaa tagaan waa dhif iyo qalil inay dib kugu soo noqdo, waa inuu dib kugu soo noqdaa ninkaas. I don't know why. waa inuu dib kugu soo noqdaa. So marka maadaama uu rabo inuu sahay meel uu sii dhigto, adigina reasonkii uu kaaga tagi lahay uu sameeyo, wuxuu sameynaa adigii ayuu ku dulminaa. Markaas wuxuu iska dhigaa nin aan ku dulminaynin, adigiyo confuse kaa dhigaa, adigiyaa dawaqmaysid, adigiyaa isla yaabaysid, heer markaas ka bacdi aad furfuratid oo aad hadashidoo tiraahdid what's going on, maxaa kaa qaldan. Bam, as soon as aad tiraahdid maxaa kaa qaldan, waaba intuu rabeba. markaasaa lagu leeyahay wax waalan baa tahay, waxaan fiyoobeen baa tahay, naag ureysa baa tahay, naag sidaan baa tahay, aniga baa iska kaa dul qaadana. 12 eed ayuu ku saaraa asigoo iska dhigayo ninaan dembi kaa gelin. dembigii sameynayay markaan waa hadashay lagama yaabo inuu si wanaag uu ku tago, because wuxuu rabiyaa inuu adiga dembiilo kaa dhigo, asigana oo iska dhigo inta nin fiican oo wanaagsan oo hadhowdi birado hadduu kugu soo noqdo uu kirado de walaal macaan adigiyaan kaa joogi waaye, de walaalo adigiyaan kaa hergali waaye, adaan kaa hoyan waaye, waad oge tad ii saarisay. de wixii aan kuu saariyey walaal macaan adigaa keensatay, adigana ma dheeside yaa ilmahayga caruurtooda waaye aad tiraahdid forgiving aasiisid oo aadan yacni ku adkaynin oo aad tiraahdo adigaa saan sameeyey, hey aniga waxba kuumaana sameynin, adigaana la timaada, adigaana ahayd ruuxii markaan hadlay cararay aniga iyo aflagaadeeyey. oo markaas ul inaad qaadatid meel adag kaga soo haran hadduu kugu soo noqonayana adigoo adag uu kugu soo noqdo oo aad tiraahdo yaa weylag mar dambe hadda waxaas igu samaysid.